waxaa maanta markii ugu horeysay si adag oo aan horay looga baraan u hadlay xogayaha guud ee ururka xagjirka ah ee Gimbood 7 ee Axmaarada Andergecho Tagase. Andergecho oo muddo 4 sano ku jiray xabsiga dhexe magaalada Addis Ababa kadib markii laga soo qabtay dalka Yemen isagoo u socda dalka Eritrea ayaa xabsiga ka soo baxay maalmo yar kadib markuu xilka la wareegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Andergecho ayaa waraysi uu siiyay VOA-da waxa uu ku sheegay in guud ahaanba wadanka Itoobiya uu ku jiro xaalad cakiran taasoo keeni karta ayuu yiri in dhiig badan daato. waxa uu sheegay in rajadii iyo rabitaankii shacbigu god ku dhacday isla markaasna kooxda maanta hormuudka oo ah EPRDF ay yihiin kuwa ka liita kuwii ka horeeyay ee Tigreega. waxauna arintaasi ku sababeeyay in kuwan ayna waxba gacanta ugu jirin oo deegaan waliba uu maanta leeyahay kumanaan ciidan ah saxaafad gaar ah iyo hay'ado sirdoon oo dhammaan ku salaysan islaam qoomiyad. Andergecho ayaa sheegay in hadal dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo xisbigiisa OPDO ee ahaa inaan gorgortan laga geli karin nidaamka federaalka uu yahay hadal mugdi gelin kara rajadii ahayd in la abuuro wadan ka madax bannaan siyaasad qoys. dhanka kale Andergecho waxa uu sheegay inayna suuragal ahayn in xisbiyada aaminsan wadaniyada guud ay ka hawlgalaan deegaanada dalka oo ay xitaa caasimadda dalka Itoobiya ku jirto. waxaana sabab uga dhigay in deegaan walba ay qoomiyad gaar ah haysato cidii wax ka bedelan rabitaankooda la yimaadana haysan jirin cid ka difaacaysa weerarada suurtagalka ah inay ku soo qaadaan. Andergecho aad u careysan ayaa sheegay in maanta Itoobiya ay tahay wadanka kaliya ee kililadiisu ka ciidan sirdoon iyo saxaafad badan yihiin dawladda dhexe kuwaasoo dhammaan ku salaysan isir. waxa uu tusaale u soo qaatay in deegaanka Tigray uu maanta haysto ciidan kor u dhaafaya 2 milyan waa sida uu yiri. Andergecho ayaa ugu dambeyntii sheegay in iska daa isbedel Itoobiya ka dhacay oo maanta wadanku gacanta u galay kuwa ka liita kuwii ka horeeyay oo xitaa isku hayn kari waayay nidaamka ay hoggaanka u hayaan. waxa uu yiri waxaan rabaa in aan cadeeyo in guud ahaanba albaabkii ballaarinta fagaaraha siyaasadda uu xidhmay si ka daran sidii sanad ka hor u ahaa waa xilliga ay dalka ka talinayeen kooxda TPLF. arintani ayuu sabab uga dhigay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kooxdiisu ay aamineen inayna wadanka maamuli karin haddayna raacin nidaamkii EPRDF balse nasiib darro ayna lahayn awood ay xataa ku hagaan nidaamkii ay ka farcameen. hadalka Andergecho ayaa u muuqda mid quus ah kaasi oo indhaha u daboolaya kooxaha wali aaminsan in la abuuri karo wadan hal calan hal ciidan iyo hal diin iyo hal luqad leh. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale waraysi uu bixiyay madaxweynaha gobolka Tigreega uu ku sheegay in dalka Itoobiya uu qarka u saaran yahay inuu ka dhaco dagaal sokeeye isagoo sheegay in dalka aysan ka jirin haba yaraatee wax dawladda oo maamusha.